ما ahan cadaadis Robin Amorim oo Manchester United ka badbaadiyay burbur sirta nidaamkiisa cusubna ka shifay tababaraha Manchester United Robin Amorim ayaa sharaxay sababta uu ugu wareegay nidaamka afarta difaacintii lagu jiray guushii hal Liverpool ee United ka gaartay Newcastle isagoo adkeeyay in go'aankaasi uu ku saleysnaa cadeen farsamo ee uusan ka imaanin cadaadis dibadeed isagoo hadlayay ka hor kulanka Wolves Amorim wuxuu meesha ka saaray sheekooyinka ah in isbedelkaasi uu jawaab u ahaa cadaadis ka yimid taageerayaasha ama warbaahinta wuxuuna carabka ku adkeeyay in kooxda hadda si ka sii cad u fahantay qaabka ay rabto inay u ciyaarto ma aha cadaadis idinka ama taageerayaasha nooga yimid balse waa sababta oo ah hadda waxaan fahamsanahay sida aan rabno inaan u ciyaarno mabaadi'deena waa isku mid ayuu yiri Amorim waxaan bedeli karnaa nidaamka waxaan aaminsanahay inaan noqon doono koox wanaagsan sababtoo ah marka dhammaan ciyaartooydu soo laabtaan mar walba kuma ciyaari doono saddex daafac waan horumari doonaa laakiin markii hore marka laga hadlo bedelidda nidaamka mar walba ma aanan samayn karin wax dhaqdhaqaaq ah sababtoo ah ciyaartooydu waxay u qaadan lahaayeen inaan u bedelayo cadaadis idinka yimid awgiis taasina aniga aragtidayda waa dhamaadka tababaraha ayuu hadalkiisa ku daray dhinaca kale Manchester City oo heshiis hordhac ah la gaartay Anthony Semenyo Manchester City ayaa heshiiska shakhsiga la gaartay weeraryahanka Bournemouth Anthony Semenyo iyadoo wakiiladiisa lagu waday inay yimaadaan Manchester si loo dhameystiro faahfaahinta heshiiska ka hor suurtagalnimada uu ugu biirayo kooxda bisha Janaayo lacagna 65 milyan oo pound kooxda Pep Guardiola ayaa durba wada hadallo la furtay Bournemouth si ay ugu heshiiyaan qodobka sii deynta ciyaaryahanka kaas oo shaqeynaya oo kaliya ilaa 10 Janaayo ilaa hadda Manchester City ayaa ah kooxda kaliya ee si rasmi ah u muujisay xiisaha saxiixa Semenyo dhanka kale xiisihii Liverpool ayaa hoos u dhacay iyadoo aan wax xiriir ah lala sameyn Bournemouth ama ciyaaryahanka laftiisa inkastoo hore loola xiriirin jiray Arsenal Manchester United iyo Tottenham Semenyo qodiisu wuxuu doonayaa inuu u ciyaaro koox u tartamaysa koobabka waaweyn waxaana uu door bidayaa mashruuca Manchester City xil ciyaareedkan Anthony Semenyo ayaa u dhaliyay Bournemouth 9 gool oo horyaalka Premier League ah wuxuuna sidoo kale caawiyay 3 gool fiidyo naqshan saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ilaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran mahadsanid